waxaan ku faraxsanahay caawa mar kale in aan idinkala soo qayb galo kulankan ama video conference loo yaqaano oo habeen walba aad ku kala qaataan wax alla wixii xog ah ama report ah xaqiiqatan reportka caawa aad siiseen oo aan idinka dhageystay waxa weeye mid aad iyo aad dhaxalgal u ah oo faahfaahsan hadday noqoto dhanka wacyigelinta hadday noqoto dhakhaatiirta hawsha ay hayaan hadday noqoto culummada runtii hawsha ay ku dhex jiraan iyo guud ahaanba guddigan ka hortagga cudurkan COVID-19 oo uu ra'iisul wasaaraha uu horseedka u yahay ama hoggaanka u yahay iyo golaha wasiirada oo runtii qayb ka ah ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka aad iyo aad yaan runtii dadaalkiina weyn committed ka ah ama commitmentiga ah aan idinkaga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyadana dowladihii runtii ka soo jawaabay codsigeena ka soo jawaabay welina waa wadnaa inaan dowlado kale la hadalno si ay noola soo gaaraan kaalmo dowladahaasi runtii waana garab istaageen waana uga mahadcelinaynaa wax alla wixii ay karaankooda ahaa oo ay gacan ama garab naga siiyeen iyo hay-adaha caalamiga ah oo iyaguna runtii qayb ka ahaa inayna soo gaaraan oo na taakuleeyaan waxaan rabaa aan intaas rabaa inaan ku daro guddigan gurmadka runtii dadaal badan ayay geliyeen inay dowlad goboleedyada gaarsiiyaan wax alla wixii taakuleen ah ama macaawino ah hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay mid daawoba labadaba runtii aad iyo aad yaan ugu hambalyeynaya shaqada adag ka hortagga cudurkan ama inaan la dagaalno bixintaas aad isiiseen oo runtii taabanaya inta qof oo la xaqiijiyey oo cudurka qaba iyo inta qof oo ka kacday iyo inta qof oo u dhimatay allah u naxariisto intii u dhimatay naxariistiisii iyo jannadiisa allah siiyo inta u xanuunsanna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu si degdeg uga kiciyo waa isla garanay ka hortagga cudurkaani inay tahay wax ugu muhiimsan ay ugu horeyso waxaa la yiraahdo luqadda qalaad lagu yiraahdo social distancing in la kala fogaado isla markaasna nadaafadda lagu dadaalo gacmaha la iska dhaqo sanka iyo afkana la iska xiro runtii intaasoo idil waa ka hortag ka dabataggiisu waa dhib badan yahay runtii waa xanuun badan yahay marka waxaan ku boorinayaa shacabkeenna meel kasta ay joogaan inay ka shaqeeyaan ama ay ku dadaalaan sidii ay uga hortagi lahaayeen cudurkan bil ramadaana ayaan ku jirnaa qof walba waxaa loo baahan yahay inuu ducaysto oo qur-aanka la badiyo oo alla bariga la badiyo si ilaahay uu cudurkan safmareenka ah dilaaga ah uu noo garmariyo insha allah waa ka guuleysanaynaa